جماعة صاحب يا شيكوين كعيارها كو وين فيدين دونا مانتا إن وين مقرونية يا شاقين وقعدوا غنا حقو عن فيغا توجل لوغو مقعابي حلوك قرانك دالك إنجليز كام حي تاهي sababta ka dambaysa iyo hadalka cunsuriyada ay ka soo yeeray hogaamiyaha kooxda United-ka Wayne McRooney ayaa sheegay inuu aad uga naxay go'aanka FA Tuchel lagu magacaabay tababaraha cusub ee Ingiriiska. Tuchel ayaa bedeli doona Gareth Southgate ka xilka dagay kadib guuldarada Ingiriiska soo gaartay finalka Euro. Wuxuu xilka kala wareegi doonaa tababaraha ku meel gaarka ah Carsley kooda Janaayo. Waxaan u maleynayaa in Tuchel yahay tababar aad wanaagsan ayuu yiri Rooney, laakiin waxay ahayd mid la yaab leh in FA shaqaaleysiiyaan isaga. Rooney ayaa ka mid ah dad badan oo muujiyay la yaabka inay ku noqotay go'aanka FA in Tuchel loo doorto booska xulka halkii la soo xulan lahaa tababar Ingiriis ah. Tababaraha Plymouth Ugly ayaa amaanay horumarka FA tababarayaasha da'da yar Ingiriiska. Waxay FA soo saareen tababarayaal heer sare ah 10kii sano la soo dhaafay. Ingiriiska waa madal weyn ee ka soo baxayaan tababarayaal da'da yar. Marka waxa la yaabanahay in mid ka mid ah kuwa gaarka ah aysan u qaadanin xilka Ingiriiska ama xulka Ingiriiska. Dhinaca kale Arteta ayaa shaaca ka qaaday xilliga la filayay Martin Odegaard uu soo laaban doono kooxda taawar wanaagsan u ah kooxdan. Kabtanka Arsenal ayaa ka maqnaa kooxda tan iyo dhaawac anqawga ka soo gaar xulkiisa Norway bilowga bishii September. Gunners ayaa goorsii horeysay ka gaabsateen waqti sax ah ee sheegtay soo kabashada xidiga. Waxaa jira war sheegaya in soo kabashada Odegaard dib u dhacday taa uu keeni karto inuu ka maqnaado kooxda ilaa bishii December, laakiin sheegashadaasi ayaa beenowday. Tababar Arteta ayaa shirkiisa jaraa'idii Jimcaha maanta kaga hadlay haddii uu filayo Odegaard inuu ciyaari doono inta aan la gaarin kulamada caalamiga ah bisha soo socota. Arteta ayaa ku jawaabay waan filan karnaa soo laabashadiisa ka hor fasaxa December. Xidigan u soo laabta Arsenal ayaa u noqon karta mid u wanaagsan kooxda kubadda cagta Arsenal iyo tartankooda horyaalka. dhinaca kale sheekada ugu weyn maanta ilaa xalay la hadal haya ayaa ah Lionel Messi in lagu abaalmariyay ciyaaraanka ugu fiicnaa abid kubadda cagta soo mara kadib xafladii ay qabatay Marca. La xaliyay oo waaweyn ayaa ugu tartamay abaalmarintan ay bixisay Marca. Messi, Ronaldo, Pelé, Di Stefano, Maradona iyo Cruyff ayaa tartanka u dhaxeeyay. Messi ayaa helay in ka badan codadka ciyaaryahan kasta ee tartanka kula jiray, waxaana ugu dambeyn looga yeeray masrax si loo guddoonsiiyo abaalmarinta kii ugu wanaagsanaa kubadda cagta. Messi waa ciyaaryahanka ugu koobka badan taariikhda kubadda cagta ee abaalmarinta ku garaacay ninkii aad ku xifaaltamay CR7. In la aqoonsaday Messi abaalmarinta xalay kii ugu fiicnaa oo dhan ee ka careysiisay jamaahiirta Ronaldo oo arka xidiga Portugiiska ah kan ugu wanaagsan dunida. Marca ayaana Messi guddoonsiisay abaalmarintan qaaliga ah ee u arkaan inuu yahay xidigii ugu wanaagsanaa. Dhinaca kale Ronaldo imise lacag ayuu ka sameeyaa baraha bulshada. Ronaldo ayaa wali ah ciyaaryahanka ugu mushaharka badan kubadda cagta adduunka sida lagu sheegay warbixin cusub oo soo baxday. Xidiga Portugal ayaa sanadkan waxa uu soo xarootay sanadkii 263 milyan oo euro isugu jirta mushaar iyo xaysiimo. Ciyaaryahanka United Real Madrid ayaa wali ku jira kaalinta koowaad iyadoo 39 sano jirkan dhaqaale badan oo ka sameeyay baraha bulshada. xogtana lagu baahiyay shabakada dhaqaalaha Forbes ayaa lagu sheegay Ronaldo 203 milyan oo euro mushaar ahaan kaga helay kooxda Sacuudiga Al Nassr isagoo 60 milyan dheeraad ku helay xaysiimaha baraha bulshada. Wuxuu soo biiray dhawaan barta YouTube kanaalkiisa ayaa noqday kii ugu dhaqsiyaha badnaa ee gaar 1 milyan oo macaamiil ah. Ronaldo tani markii uu ku biiray horyaalka Sacuudiga wuxuu kaalinta koowaad kaga jiray liiska ciyaartooyda ugu mushaarka badan dunida. Lacag badan ayaa ka soo gala baraha bulshada lagu daray kooxdiisa lagu daray xaysiimaha taa oo ka dhigaysa inuu yahay ninka ugu mushaarka badan waqtigan ciyaartooyda ciyaarta kubadda cagta. sheekooyinkaas ugu xiisaha badnaa saaxiibayaal muuqaalkan gaarsiiya asxaabtiin.